السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنا ونكسن دعوة ديال المسلمين الصوماليين ملك سو جوجتان دعالada adduunka waa 10ka bisha lixaad sanada 2020 iyo labada maalin jumco ah isla markaana waxaan joognaa goob ay ku sugan yihiin 400 oo dad masaakiin ah arintan runtii waa arin ka duwan mucaawinooyinkii iyo tabarucaadihii aan sameyn jirnay waa arin dhif iyo naadira waa arin aan horay u dhicin waa arin ku dayasho mudan isla markaana Soomaalidu aysan ku dhiiranin waxaana leenahay runtii waa arin aad iyo aad u wanaagsan waxaan la joognaa 400 oo masaakiin oo qaarkood ay xalay Soomaaliya ka soo galeen qaarkood shanbari ay joogeen qaarkood agooma iyo rajooyin iyo masaakiin iyo waayeel iyo dad naafay isugu jiraan dadkan waxaan u qaybinaynaa lacag $10 ama kun shilin oo lacagta Kenya arintan waxa ka dambeeyay oo sabab u ahaa wiil iyo gabar Soomaaliyeed oo qurbaha jooga ayaa isjeclaaday isa soo doonay aabihii iyo hooyadii gabadha dhalay ayaa guf loo keenay gufti ka sokow ama gabaatigii waxa loo keenay lacagta arooska kuwaas oo loogu talagalay inay aroos iyo baatiyo ku dhigtaan hoteelo ku kireystaan sidaas darteed aabihii gabadha dhalay iyo hooyadii ayaa waxay go'aansadeen intii hoteelo waaweyn intay kireeyaan dad daragsan oo runtii qurbaha jooga oo cunto u baahnayn hambalyo waxaan joognaa aroosada iyo caruuska aadan ismaaciil xasan iyo faa'iiso bashiir cadow oo arooskoodu ka dhacay qurbaha balse arooskooda maanta aan halkan ku cunayno haddaad arki jirtay xaflad aroos oo markii la dhigo ay ka soo qayb galaan madax dad calool waaweyn ama dad ganacsataa iyo dad daragsan waa aroos ay ka qayb galayaan oo ka ducaynayaan oo ka mashxaradayaan masaakiin aan xalay dabka shidanin shalay qadaynin isla markaana gurigooda waxba u yaaleen 400 oo kamid ah dadka masaakiinta ku dhaqan xiriyaha qaxootiga Dadaab oo qaarkood hadda ka soo galay Soomaaliya oo waxba haysanin oo dabka shidanin ayaan halkan ku siinaynaa 4,000 oo dollar ama 400 oo kun oo lacagta Kenya lacag Kenya ahaan bay nagu soo gaartay lacagtu waa 400 oo kun dollar nima nagu soo gaarin 400 oo kun bay nagu soo gaartay lacagta Kenya ah sidaas darteed waxaan siinaynaa 400 oo qof oo rag iyo dumar isugu jira oo ay ku jiraan waayeel naafo agoon rajooyin dad aan la horjoogin dad masaakiina kuwa aan dabka shidanin dad inta badan dhawaan ka soo galay Soomaaliya arintaas runtii waa arin dhif iyo naadir ah waa arin aan horay u dhicin waxaana Allah subhanahu wa ta'ala ka sokow sabab u ahaa Aaba Bashiir Cabdullaahi iyo hooyo Luul Muuse oo dhalay gabadha isla markaana ah qoyska arintan sababta u ah waxay dhaleen Faa'iiso Bashiir Cadow kuwaas oo runtii go'aansaday wiilka iyo gabadhaasi ay midna sodohda u yihiin iyo sodohda midna ayaga ay dhaleen qoyskaasi isku aroosinayaan wixii dad daragsan la siin lahay cuntada sida israafka banaanka loo daadin lahaa ee runtii soo hari lahayd in dadkan masaakiinta ah ay ku qadeeyaan oo ku casheeyaan marka waxaan rabnaa wiilka iyo gabadhaas iyo aabaha iyo hooyada dhalay ee waalidka inaan u duceyno ilaahay reerka isku barakeeyo amiin dhaha ilaahay wiilka iyo gabadha isku barakeeyo ilaahay ubad khayr qaba oo baariyaala ha kala siiyo ilaahay subhanahu wa ta'ala reer badan iyo beelo badan Allah ka dhigo ilaahay ha isku macaaneeyo cimri dheer iyo cibaado sir Allah isku siiyo ubad baariyaala oo sidan oo kale sida aabahood iyo hooyadood sidaqada jecel ilaahay ka beero ilaahay subhanahu wa ta'ala ka beero waa maalin jumca oo runtii saacatul ijaaba sida culimadu sheegtay ku jirto oo khayr badan ilaahay subhanahu wa ta'ala reerka ha barakeeyo Aaba Bashiir iyo hooyo Abshirina Allah ha barakeeyo reerkaasi iyo waalidiintood iyo intay dhaleen ba Allah ha barakeeyo xoogooda Allah u barakeeyo xoolahooda Allah u barakeeyo ilaahay subhanahu wa ta'ala sharka adduunka kana qarab dhinaca ka mariyo ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa wanaagsan oo jannatul firdaws ugu horeyso ilaahay subhanahu wa ta'ala ku manaysto ilaahay ha nimceeyo aabahan runtii waalidka ee gabadha dhalay waxaan xusuustaa bisha Ramadaan wuxuu ahaa ninkii 500 oo qoys hal maalina raashin bisha dhan ku filan siiyay oo lacag badan runtii 700 oo kun baan filay inay lacagtaasi oo ugu deeqay dadkaasi oo ku afuriyay sidoo kale waxaan xusuustaa qoys dhibaataysan oo xanuunkooda waxba laga qaban waayay uu ka faalo qaaday oo magaalada Gaaris ilaa hadda biilkooda uu bixiyaa oo daawadooda uu daba joogaa oo daawadooda uu bixiyo ilaahay subhanahu wa ta'ala aabaas ha barakeeyo waa nin xitaa ka gaabsaday ma jecel xitaa magaciisa ila sheego wax kasta wuu siraysanayaa
إلهي سبحانه وتعالى إساقا نيدي سوق وحو رب إلهي سيو إلهي هبركي أرنتا سؤالين ونكسن ما سؤالين عن هوري أدعين ما سؤالين رنتي الغود داين كرما waxaan leenahay dadka is aroosanaya meel kasta oo joogan ha ku daydaan reerkaasi ha ku daydaan wiilka iyo gabadhaasi ha ku daydaan arimaasi adigoo arooskaada 20 qof 30 qof oo dharagsan cunto ay soo reebeen oo waqti haynin aad ku barbarido waliba gaari u dirto qarash kaaga baxa waxa kaaga wanaagsan 400 oo masaakiin oo abaal iyo ajir iyo runtii duca kaaga haysa marka reerkaasi markaan tukano salaada jumcada maanta iyo wixii ka dambeeya iyo salaatul leelka iyo markaan tukataanba u soo duceey niyada ku qabta in uu Ilaahay subhanahu wa ta'ala reerkaasi barakeeyo